xogayaha warfaafinta xisbiga mucaaradka ucud mudane yuusuf kaysa cabdilaahi ayaa maanta xarunta xisbigaasi ku leeyahay magaalada Hargeysa kula hadlayay warbaahinta ayaa digniin adag u diray xildhibaano uu sheegay inay ka tirsan yihiin baarlamaanka Soomaaliland oo sheegay inay gobolada dalka ka wadaan kicin dadweyn waxaana hadaladiisi kamid ah waxaan halkan uga digayaa xildhibaanada golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka ee ku hawlan kicinta bulshada waxaan leeyahay war joojiya war ka daaya kursigan waa kursiga 15 sano fadhideen baahi maanta ay u qabtaan in haddana bulshada u kicisaan ma jirto waxaan leeyahay calafkiina uu ka dhamaaday kuraasta ninkii doonayay inuu dib u tartama maanta bulshadii baa dib loogu noqonayaa bulshada idin qiimeynaysa bulshadaadii ku noqo dhanka kale waxa uu ka hadlay xariga muddooyinkii ugu dambeysay xukuumadda Soomaaliland kula kacaysay qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaas oo isugu jira saxafiyiin salaadiin siyaasiyiin xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliland iyo sidoo kale golayaasha deegaanka oo ugu dambeeyeen xildhibaanadii laga soo xiray gobolka Gabiley oo hadda ku xidhan xarunta CID ee magaalada Hargeysa waxaana uu sheegay in xariga soo noqnoqday ee ay ka dambeysay xukuumadda Soomaaliland hoos u dhigay sumcaddii ay Soomaaliland ku lahayd dunida isagoo ugu baaqay xukuumadda Soomaaliland inay ka wantoodo xariga sharci darrada ee kula kacayso qaybaha kala ee bulshada batay tii saxaafad la xiraya ay tahay iyo haday bulshada caadiga la xirayaba ay tahay mushkiladuna waxa weeye xeerarkii iyo dastuurkii inoo yaalay ayaynan ku dhaqmay marka anaga waajibkana saaran xisbihan waxa weeye inaanu mar walba xaaladda dalka jirta aanu ka hadalno dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 13 ayaa damaanad qaaday xuquuqda xorriyadda raay dhiibashada inaynu xeerarkeena intaanu meel iska dhigna dad iska soo xidhno sumcadda qaranka ay dilaysa in qofku raayigiisa dhiibta oo si u dhiibta xushmadi ku jirto loo xidho waxay dilaysaa sumcadda qaranka iyo nidaamka aynu qaadanay waxaan leenahay hal joojiyo madaxweynaha wax u tarimayso xukuumaddiisana wax u tarimayso waxaan sumcad darraahin qaranka u keeni mayso in qof la iska soo xidho oo intii la doono la haysto oo marka dambana la iska sii daayo sumcadda qaranka ay dilaysa geesta kale waxa xogayuhu sheegay taliyaha CID uu ka hor istaagay inuu booqdo dad ku xidhxidhan xarunta CID ee magaalada Hargeysa oo isugu jira saxafiyiin iyo xildhibaan waxaana uu yidhi anagu xisbiyadu waxaan looga baahan yahay dulqaad waa maalintii afraad ee aan CID da tago ee aan ka codsado anigoo wada sharciga u maraya inaan booqdo taliyaha CID uu diiday si cad buu diiday isagoo dadkii kale u sii deynaya ayuu igu yiri Yuusuf adiga lagu sii deyn maayo Ahmed Maxamed Umar Ahmed Dayax Bulsha TV magaalada